salaadu aynu tukanayno sidaa ilaahay baa uu sheegay subxaanahu wa tacaala waa nadaafad waana nidaam waana nasasho nadaafad weeye oo waxay nadaafad u tahay jidhka iyo ruuxda iyo qalbiga intaba jidhka iyo ruuxda iyo dhaqanka akhlaaqda iyo dhaqanka waxaa la ogsoon yahay qofka tukanaya iyo qofka kale xagga jidh ahaan inaanay dee isku nadaafad ahayn qofka tukanaya salaaduba kama ansaxaysa haddaanu nadiif ahayn oo shuruuddii salaadda waxaa ka mid ahaa jidhkiisa iyo maradiisa iyo meeshu ku tukanayna nadiif tahay in allaha yuxibu الtawaabiina wa yuxibu اlmutatahiriin haddii shardigaa la waayo salaadiba kama ansaxdo dadkeena qaar ka mida baa markaa tidhaa war maxaad u tukanayda wuxuu ku leeyahy weli dharkii baana weli maydhin weli nadaafadayda wax ka siin oo markaaga hore sida aygaad isku saydhaysaa kaadida iyo nijaasta miyaanad aadamo bani aadam ahayn markaa qofka salaadani tukanaya jinaabo male dhiiggii caadada male kii dhalmada male waanu weyse qabaa beri dhexdeeda waddanka ingiriiska waxaa ka dhacday dugsiyadan xukuumadda la wada dhigto ayaa ruux dumar oo maamulo ah oo waddanka ingiriiska dugsi bay maamulaysa maamulo adiga jeer marka carruurta soo galaya waa kan jeegareeya nadaafadooda hablaha ayay jeegaraysaa ama eegtaaye baadhaa nadaafadooda waxay aragtay hablihii xijaabnaaye muslimka ahaa iyo kuwii yaryaraaye kale iska dhowreydii dee aan islaamka ahayn inay kala duwayno kuwan ay wax ka urayaan kuwana inay nadiif yihiin oo waxba ka urayn bay aragtay arrintii bay markaa u kuur gashay way daba gashay markay xamaamka galayaan bay u fiirsato waxay aragtay hablahanoo weel sita gaaladu had iyo jeerna bahashan gacantan isjada iyo waxaa ma sameeyaan soft iyo waxbaa la isticmaalaa oo shaydaanka xagga kale u qalociyo bakteeriyaad ka qaadaysa bakteeriyada xagga hoose miyaanu ka qaadayn hadduu gacanta waa shaydaankaa wuxu sheegay marka hablihii oo istijoonaya oo weysisanaya aragtay kuwii kalena intay soft yar isticmaalaan unbay la soo baxayaan waxoodii waan fahmay bay tiri marka sirtii waan fahmay waxay ku soo rogtay sida hablaha muslimiintu isu nadiifinayaan inay iyaguna isu nadiifiyaan bal inay udgoonaadaan waa dahaaratu lbadan dahaaradii ruuxda weeye nebigu calayhi salaatu wasalaam uu inoo sheego wuxuu ihi midkiin hadduu aqalkiisa hortiisa webi qulqulayo oo uu maalintii 5 jeer kaga maydhanayo webigaa iskaga maydhayo ka qubaysanayo miyuu la mid yahay qofkii kale ama wasakdiisii miyay wax ka harayaan hal yabqaa min daranihi shay wasakdiisii miyay wax ka harayaan maya weeye marka saasoo kale ka dhiganta wuxuu nebigu inoo sheegaya markaynu weysaysanayno uskaga waxa raacaya wax madoow sida dhuxushoo kale ahoo dembigiiya marka ruux ahaanna sidaasaa wax kaaga degaya wax kugu rarnaabaa weysadu ay reebaysa dhaqankiina waa nadaafado aayaddanaaba caddaynaysa waaqim الsalaa ina الصalaata tanhaa can اlfaxshaaءi wاlmunkar foolxumada iyo dembiga salaadu way u diidaa dadka salaad miyir qabto lagu khushuucay oo ilaahay si fiican loo caabudo laga run sheegay markay tahay siduu masaajidka ku joogaabuu qofku bakhaarka iyo xafiiska iyo suuqana ku joogaa haddaad aragto qof laba kalar leh ama laba shakhsiyadooda oo markuu masaajidka joogana khushuucsan oo ilmaynaya markuu baaca mustarigaya ama xafiiska uu joogana dadka ilaa cirbaha cunaya salaadiisa ma qubilat lama aqbalin leannahu calaamadii aqbalkaa laga waayey shaksiga muslimkaahi mar walba ilaahay buu addoon u yahay meel kastuu joogada marka dhaqankiibay sidaa u nadiifinaysaa hadday dadkeennu yihiin dad si fiican u tukanaya waxay noqonayaan dad miyir qaba oo ummaddu ay ka nabad gasho edab leh salaaddu waa nidaam haddaynu nadaafaddii aragnay nidaam weeye qofka waxay u nidaamisaa wakhtigiisa oo waxaad ogsoon tahay dee wakhti baad waashmaan ka tahay habeenkii mise salaadood baa la tukadaa maqribkii cishaayigii taraawiixdii ama salaatuleylkii witrigii wuxuun baad ilaalinaysaa wakhti ubaad gaarhka ka haysaa heegan baad ku jirtaa sidaa waashmaanka iyo qofka shaqaalaha kala bedelaya heeganka ugu yahay heegan baad tahay oo nidaam baad ku socotaa maalintiina saasoo kale salaatu duxadii salaadii kale duhurkii casarkii nidaam baad ku socotaa markay arrintaasi dhacdo qofka dimaaqiisa iyo maskaxdiisu waa mubarmaj wuu qorshaysan yahay ma aha qof qaafila oo aan madlac dee goor qoraxi soo baxdayda aan ogeyn qofkaan tukanayn miyuu yaqaanaa goortay qoraxda soo baxday
goormay dhacday horta halkeenu maraynaa saacaddu waa imsadiibu ka odhanaya xageenu maraynaa ma gelni hore mise mid dambe ka iskuma madlac ma hidinba isku qoraxba ma hidinba idan waa nidaam bay qofka u yeeshaa bulshadana sidoo kale nidaam bay u tahay oo imika markaynu sidaa u tukanayno sawir kooban baynu ka bixinaynaa dowladdii islaamka eeg imaamkani madaxweyne buu inooga dhigan yihin innaguna bulshadii la hogaaminayay baynu nahay imaamkaasi hadduu khaldamo miyaynu iska eeganaynaa dumarkuna sacabka isku garaacayaan ragguna subxaana allaahi bay leeyihin waa la saxayaa madaxweynuhu hadduu khaldamo waa la saxayaa moogti sharcigaa lagu saxayaa iyo nidaamka iyo distoorka hadduu ku adkaystuu iska sii wato waxa uu kala kiciyey salaada miyaynu la sii wadaynaa fiqiga maxaad ku aragtay fiqiga imaamkii oo salaadii khaldood arkaysa arkaantii inuu qaar ka tegay miyaad la soconaysa lama soconay sida subxaana allaahida hadduu la qabsan waayo kuu joojin waayo adna u joojin may sida waad ka goosanaysa marka saasuu yahay maamulka muslimka hogaaminaya markuu sharciga ka baydho adeer sharcilaan kugu raaci mayno wey idan khilaafadii iyo dowladdii islaamkay nidaamkiisii dadku ay ku wada soconayeen bay sawir yaroo kooban ayay kaa siinaysaa iyaduba ugu weyn tahayba oo markuu nebigu abubakar u dooray salaada madaxweynenimadiina waa loo dooray dadka salaada ku fiican baa hogaamintana ku fiican ka salaada dayacee ka tegay iyo diintana hogaaminna hadalkeeda badaa salaadu waa nasasho adigoo iska kulul oo kadeedan baad gelaysaayo waad khushuucaysaayo waad kala degaysaa leanna jidhka waxaa uu u diyaarsan yahay inuu ilaahay caabudo subxaana wa tacaala khaanadaasi way bannaan tahay maxaa imika idin keenay halkan afurkii qofku uga soo degdegaya cibaadadu u haraadan yahay iyo taraawiixda iyo qiyaamuleylka iyo qur'aankan sida fiican loo akhriyayo u dhegaysanayo kaasuu ku nasanaya waa quud kalaynu qaadanayno sidaa daraaddeed baa ilahay uhi wastaciinuu bisabri wasalaa markay dhibaata idinku timaado si aa u nafistaan oo u nasataan salaada iyo sabirka kaashada kaana rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam idaa xasabahu amru sallaa arrin markuu nebiga soo dariyo ama uu ku cuslaado wuu tukan jiray wajucilat quratu cayni fi salaa xadiidka saxiixa ah anigu waxaan ku nastaan ku nafisaa buu leeyay nebigu salaada marka haddaad aragto salaadda inaanad ku nasinayn oo aanad ku nafisaynin xoogaa xanuunaa jire farmasiga qur-aanka xoogaa dawa-a ka soo qaado salaadu waa dariiqo lagaga adkaado nacaskii xumaayo shaydaanka ee layna daba dhigay mar alle markaynu aadaano ama aynu aqiino nebi maxamed wuxuu xusayaa sala allahu calayhi wasalam madaafiic baynu ridaynaa madaafiicdan soomaalina waaweyne qaaradaha ka gudbee dowladuhu isku ridaan ayaynu shaydaanka ku ridaynaa markaasuu cararayaa meel ilaahay ogya walahu duraad isagoo culayska haysta neef xagga dambe ka sii daynaya naqas ayuu xagga dambe ka sii daynaya bal inuu codkaa maqli waayo wuu soo noqonayaa inkaari ku dhacday haddana markaynu aqiiminaynu madaafiic kale ku sii daynaynaa horta intaasaaba inaga daciifinayso oo salaada dhexdeeda isagoo yaro daciifa buu ina helayaa inaga hadhi maayo haddana marka waa dariiqo shaydaanka laga adkaado ugu dambayntii waa riyaadatun ruuxiyatun wa badaniyatun wa caqliya qofku tababar buu u baahan yahay si aanu noqonin qof isku daadsan oo bahluul ahoo noloshiisu caswaayi tahay ruuxday carbinaysaa oo jidhka ayay carbinaysaa oo caqligay carbinaysa idan markaa waxaynu ogaanaynaa wax kastoo ilaahay uu nagu waajibiyey xikmadda iyo sirta iyo faa'iidada uu leeyahy markaa qofku haddii aanu salaad tukanaynin calankii islaamka ma sida calaamadiisiina ma laha saa daraaddeed bay asxaabtu leeyihiin gaalnimo aan u naqaanay waktigii rasuulka sala allahu calayh wasalam qofkaan ilaahay caabudaynin waa lagama maarmaan ummaddeenna ehelkeenna iyo ubadkeennaba inaynu ku carbinno salaada oo aynu ku ababinno siduu nebiguba yidhi sala allahu calayhi wasalam 7 jir fara caruurta 7 jir salaada ku fara 10 jirkana ku edbiya dhowr iyo 10 jirka markaa ka tegi maayo taasaynu isku ognahay iyo inuu ilaahay noo fududeeyana waa baraynaa